بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. أولا waxaynu ku salaamaya salaanta islaamka insha allah biidnillaahi waxaynu wada sheekeyn doonaa maanta cashar insha allah noqon doona imtixaana ah kaas oon maanta ku eegi doono sida loo sameeyo simple login visual basic 6.0 inagoo qorayna luqada visual basic ayaa waxaynu ku isticmaali doonaa softwareka la yidhaha visual basic 6.0 haddaba waxaynu soo sameynaynaa ugu horreynta softwareka waa inuu noogu install garaysnaa computerkeena si aynu u isticmaalno uguna dhisno project simple ah. markaas aniga run ahaantii ugu install garaysay haddii aanu kugu install garaysnayn waa inaad isticmaashaa softwareka ood ku shubataa. waxaad ka heli kartaa website-yada ayaad ka heli kartaa haddii aad ku qorto isagoo free ah. insha allah waxaan rajeynayaa inaad soo dejisato. ugu horeyn waxaan eegi doonaa qaabka visual basic. waxay noo soo kacay projectkeenii waxaynu markaa doonaneynaa standard legacy waayo waxaynu doonaynaa inaan sameyno simple yar. haddii aynu u baahannahay inaynu sameyno project aada u ballaaran markaa waxaynu doonaneynaa vb enterprise edition. waxaynu dooranay markaa standardkeenu ku tijaabsanaynaa. run ahaantii waxaa xaggan ka muuqda ood arkaysiin qeybtii toolbarka ama toolboxkii oo ah qeybtii aan u isticmaalayna drag and drop. xaggan waxaa ka muuqda qeybtii propertieska, xaggana waxaa ka muuqda project explorer qeybtii aynu kusoo gurmayeen foomasha aynu isticmaali doono inaynu isticmaalno sun objectkan oo kale. wuxuu object kasta xaggan kusoo hoos galaya. insha allah waxa iyadna meesha taala source codekii oo isaguna u baahan inaynu qorno oo wax allaale waxaan haata aynu qornayn. ugu horeynta waxaynu isticmaalaynaa maadaama aynu sameynayn simple login form waxaynu isticmaalaynaa ugu horeynta text box waa kan levelkii framekii common buttonkii check boxkii radio buttonkii combo boxkii list boxkii timerkii shapekii list boxkii ama direction list boxkii imagekii oo isaguna xagga yaalaa. run ahaantii waxaynu ka isticmaalaynaa markaas level baynu soo qaadanaynaa inagoo markii liyaata u isticmaalaynaa left click keliyaata kabacdi inagoo xajinayna left click ayaynu saa u jeedinaa xoogaa yar inagoo qiyaasayna qiyaasta kabacdi levelka marka uu saa igu haylad garaysayahay waxa aan tegi karayaa propertieskiisa ama waxaynu dooranaynaa inaynu right click siino dan aynu propertieska doorano. waxaan halkan haatan joogaa propertieskii kabacdi name markaynu leenahay waxaan u isticmaalaynaa isa code ahaan namekaas waa midkaan ku isticmaali doono codeka. xaggan waxaa ku yaala caption means waa levelkii inaynu ka qaadno namekiisii magacaha ama kii wajahada waad arkaysaa in uu ka qaadnay. waxaan ku qorayaa markaa username waayo waxaan doonayaa inaan sameeyo simple login form. kabacdi waxaan dooranayaa haddii aan u baahanay border stylekiida haddii aanu bahay backstyle markaan leedahay waxa i haylaad garaysan imika colored background kale ayaa saaran. marka haddii aan doonayo inuu aqbalo folderka ama foonkan aan joogno inuu aqbalo backgroundkiisa ama colorkiisa waxaan xaggan ka dhigayaa pqga ah transparentyga this uu aqbalay waa kan. kabacdi waxaan haddana soo qaadanayaa text boxka oon u isticmaali doono hadhow tooba inaan wax input ah aan u geliyo. markaan text box xoogaa yar waan qiyaasay waan u jiidaya kabacdi markaan qiyaaso propertieska waxaan ka masixi textka waayo waxaan doonayaa inaan wax ku dhex qorto ma baahni in ay wax kusii dhex qornaadaan. kabacdi waan ka masaxay haddii aan u baahanay inaan name u bixiyo oo ku isticmaalo isla xaggaas ayaan kaga isticmaalaya. isla xaggan waxaad ka muuqata alignmentiga ay fartu kasoo bilaabi doonto haddii aan u baahdo inaan kasoo bilaabo fartu inay right kasoo dhaqaaqdo iyo inay center ka bilaabato laakiin waxaan inta badan ugu fiican inaynu ka bilowno lefty oo xaggan ah inaynu ka bilowno qoraalka. kabacdi simply waxaan doon oo wada haylaad garaysan danna waxaan isticmaalay copy anoo u baahan simple copy inaan u isticmaalo anoo haya controlka iyo waxaan labadana click wada siin kabacdi copy baan odhan. copy markaan idhaahdo waxaan haddana sameyn bas xoog waa kan yes haddii aan idhaahdo waxaa dhacaya index ayay yeelanaysaa kabacdina waxay noqonaysaa mid aan codekaaga hadhowtooda error ku keento. laakiin no haddii aan idhaahdo
waxay qaadanaysaa xagga you already have a control names level 1 waynu haysanaa. Do you want to create control area include marka inagu ma baahnin no baynu isku odhanaynaa. No baynu odhanaynaa just waynu soo wada qaadaynaa hoos baynu keenaynaa inagoo ku qiyaasaynaa cabirka ay leedahay. then kan waxaan qorayaa waxaan tegayaa waa kan levelkii aan doortay. levelka marka waxaan ka masaxayaa username waxay ku qortay password baan ka dhigayaa. password baan ka dhigayaa. this one waa text1 variablekii markaan eegno namekeyga. tanna waa text2 weyn tanna text1 weeyaan. exactly codeka ayaan qoraynaa. this one waxaan doonayaa xaggii laga doonayay in laga geliyo oo common buttonkii ah. kabacdi waxaan common button ku qorayaa namekii kasoo muuqanaya ama saad u taqaantaa nameka value ahaan kasoo muuqanaya wajahada. waxaan ku qorayaa login xaggana waxaan ku qorayaa cmd oo soo gaasay common cmd login baan ku qorayaa. waa namekaan ku isticmaalaya codeka. kabacdi waxaan isticmaalayaa double click codekii waan tagay. this one waa error baa marka hore dhacay ku dhuftay. waa kan codekii waxaan ku dhex jiraa iminka buttonkii oo bracket sub click iyo undisappear oo soo xiray. this one xaggana markaa ku qorayaa waxaan odhanayaa username page if baynu odhanaya statementkigaan isticmaalana if baynu odhanayaa haddii text1.text haddii uu la mid yahay double quote username and baan isticmaalayaa password and texting to oo passwordkii kay ku qornin dot texting uu ila mid yahay pass then baynu odhanayaa. kabacdi waxaad ii soo saartaa message boxka waxaad igu soo qortaa successful login. kabacdi waxaynu sameynaynaa buttonka kusoo dhex qoranaya messageka oo vb of only plus vb information oo calaamada informationka ah. then akad baan siin dusha sare waxaa igu soo qornaa waxaa odhanin message isla markaan dhamay inta badan xagan. kabacdi maxaan sameynayaa kabacdi else baan odhan. haddii kale message box waxaad igu soo qortaa oo inuu userku la mid noqon intaas waxay soo qortaa message fail soo qor then vb only kabacdi plus vb critical oo wax calaamada digniinta ama halis ah. kabacdi waxaan sameynayaa waxaan soo xirayaa and if statementkeyga waan soo xirayaa. this one kaa sameeyey. kabacdi waan tijaabinayaa xaggan maxaa igu qoran password xaggan waxaan ka dhiganaynaa 12 simply say nagu qoto. xaggan waxaan ka dhiganaynaa hamse kan u barano. kabacdi waan soo kicinayaa waa kan waxaan ku qorayaa farax waan ku qorayaa fail wakaas aad aragteen kumaad guulaysan ilaa aan ka dhigo hamse. then waxaan eegaya haddana cumar 11 fail. kabacdi waxaan eegaya hamse 11 fail hamse 12 successful login. waxaan sameynayaa phone kale ayaan kusoo xirayaa. then waxay ahayd tan message un bay ahayd laakiin phone kale ayaan kusoo xiray xaggan right click siinayaa right click
kabacdi add baan dooranaya, form baan dooranaya, xaggaa waan ka dooran karayaa, xaggana waan ka dooran karaa inaan xagga soo furo aan doorto form, kabacdi formkiisaan igu soo biiro formkan kale oo level soo qaato, level aan aada weyneeyo, xaggana ku qoro levelka log in ama log out aan ku qoro xaggaas, kabacdi farta fontiga xoogaa fontiga aan ku yaro daro cabirka maadaama aan weydiistay shapekeygii inaan yara weyneeyo xoogaa, waxaan ka dhigan 24 fartan waxaan ka dhigan waxaan ka dhigan boodka aan ka dhigan, kabacdi 36 baan ka dhigan, regular baan ka dhigan, kabacdi okay baan iska oran log out tani tan waan iska soo gaabin log out, kabacdi waxaan sameynayaa kabacdi phonekii this waa phone 2 namekiisu yahay, kabacdi waxaan sameyn waxaan ka dhigay inuu iga soo kaco phonekani ugu horaanta inuu iga soo baxo center windows screen centerkayga shaashadeeda, kana inuu iga soo kaco screen centerkayga ka dhigay, isla marka aan intaa dhameeyo kana ku noqoy xaggan waxaan ku sheegnay inuu message soo baxay, kabacdi waxaan odhan ii ogolow xagga phone to dot show kana iga qari aan loo dhigniyo, kabacdi markaan sameeyo saas bal waxaa dhacaya daawo exactly center buu ka soo kacay, halkaasa automatic center buu soo kacay hamse 1 2 3 fail buu leeyahay ma guuleysan runtu wadayna automatic ayuu kii kale isku xidhayaa, waxaad soo gashay saas haddaba waad ku mahadsantihiin insha allah, waxaan rajeynayaa inaad si fiican u fahmi doontid qaabka foonka loo sameeyo ama foomashu ay iskaga daba dhacaan iyo sida loo sameeyo login symbol ah ood ku sameysan karto project yar oo run ahaantii kooban. Anigoo Xamse Axmed Yuusuf. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.